buugga xalka qoyska. حبي حرمدي قلبي جاي دمرتان كحشاي حبيبي حالك واسدي xaalkaygu ma fiicna xushmadaydu ma buuxdo intaan xalka qoyska xafidayo dhammaantii oo aan xiriirkeena ku dhisanayno xogtiisa. أنا وضع حفظنا بسنة غير حرمد لي حالك قويسك وامحي xalka qoysku waa buug xaajadii gurigeena iyo xeeladii aqalkeena noo xayaabo tiro xusuus weyn inagu reebi. xalka qoysku waa buug xalinaya dibkeena oo ka helayno xog buuxdo qoysku uu ku farxayo. حالك قويسك وابوك حيل ليرا قويسو لحماتي حاجدو قويسكينو جوغو حالينا يحمهو حلقو هسيدي xushay oo ma deyne xagee baan ka helayaa. waxaad ka heli kartaa dhammaan xarumaha buugaagta lagu gado sida Zayla Bookshop, Qaaf Bookshop iyo Barakaad Bookshop. xalka qoysku waa buug kugu tababaraya sidaad u dhisan lahayd qoys waara iyo sidii aad isaga saari lahaydeen mugdiga iyo is-afgaran waaga hareeyay guryaheena. Horay u gaar oo yaan laga dhamaysan xalka qoyskaaga. xalka qoyskaagu wuxuu ku jiraa inaad hesho buugga xalka qoyska. xalka qoyska. xalka qoyska. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا ما تحب وترضى داوديال كلنتي وناكسن وعشر كأني صدحية توناد حلقة قويسك waxaan ku soo jirnay qaybaha burburiga qoyska oo aanu ka soo hadalnay labadii qaybood ugu horeysay qaybtii ama bixiyay gowraca gashaantida oo labada qaybood ahayd iyo qaybtii ku xigtay oo ahayd balwada sidoo kale waxaan soo qaadanay gogol xumada ama isqancin la'aanta burburka ay ku keento qoysaskeena insha Allah maanta waxaan qaadanaynaa shakiga oo ka mid ah qodobada burburiya qoysaskeena maanta haddii ay noo gaartaan waxaan ku dari doonaa ixtiraam xumida sidoo shakigu waa tuhun uu qofku tuhumo in wax khaldan yihiin isbedelka nolosha iyo sidaba sida hadba nolosha qofku magaaladu joogo isbedelka uu ku jiro iyana ku xiranta iyo shaqadu hayo shakigaas maanta guryo badan naga burburiyay asagoo si fudud loo daaweyn karo iyadoo la tacaali karo iyadoo xalba laga gaari karo ayaa uu weynaaday oo reero badan naga burburiyay qoysas badanna maanta ku kala maqan yihiin shaki ka dhashay waxaan macno lahayn oo dhexdooda sidaan bay idin sheegay dadku markii noloshu isbedel ku yimaado ama uu tago meel ka yar xadaarad sareysa dhaqdhaqaaqa qofka iyo baahidiisa iyo dadku la xiriiraya kulli waa badanaya mar alla markuu qofku dhaqdhaqaaqiisu batana shakigaasu inta badan dad buu aad ugu sii weynaada marka shakigu waa cudur maaha masayrka waxaan ka hadlay masayrka u tagi doonaa shakigu waa wax qofka ku abuuran oo uu tuhumo in wax khaldan yihiin socda waxaasu marka asagu ama sax noqdaan ama xaqiiqo asagu xaqiiqo uma hayo dadka Soomaalida oo hadda degan maxaan ku yiraahdaa miyiga ama meelaha tuulooyinka aada shakigu ugu yiriya sababtoo qofku waa hawshoon yahayba ama wuxuu mashquul ku yahayba camal sidana shakigu wuxuu soo galaa meelaha shaqo oo leh qofka hadduu shaqo haysto ama ha noqoto inuu akademiga wax baranayo ama ha noqoto inuu shaqo ku dhex jiro chance booma hayo shaki uu shakiyo sababtoo ah asaga maskaxdiisii mar walba waxay mashquul ku tahay waxbay ku raaxaysanaysaa mar shaqo ku raaxaysanayso iyo mar waxbarasho ku raaxaysanayso laakiin markay firaaqo hesho oo qofku fiirfiirin uu bilaabo gurigiisa dhexdiisa ama uu talaabadii shaqadii socotaba uu isha la raacraaco oo sidii daqsigii wax nabar raadiyo shakigiisa xoogaysta
wax aan meesha ku jirin baa isu sawira nin shaydaan la yiraahdo de shaqadaaba aad uga shaqeysto aad wax u buunbuuniya wax u cayilayna meesha ku jira marka shakiga maanta guryaheena burburinaya oo aan ogaanay inay qoysas badan ku baaba'een aad iyo aad baan jeclaan lahay in loo fahmo noocyadiisa waxaan kaloo ogaataan qof walba wuxuu shakiyaa inta aqoontiisa iyo garaadkiisu ay shakiyaa qofka hadduusan aqoonna lahayn waxana baran garaadkiisuna fiicnay shakina galo shakigaas aad buu u dhib badan yahay inuu qofkaas ka baxo jiruu ku noqdaa buufis baa gala dadku dhan buu isolate ka noqdaa aakhirkana wuu waashaa shakigaasana sababo qofka hadduu laakiin garaad leeyahay ama wax akhriyay oo nin wax bartay yahay waxaa laga yaabaa inuu analysis inuu qiimeeyo wuxuu ka shakiyay iyo waxa ka dhalan kara hadduu shakigaas ka hadlo si khaldan uga hadlo shaki kastoo dhaca xal buu leeyahay sababtoo ah shakigu waa waxaadan hubin marka waxaadan hubin in aad la boodo oo caadifadaada ay qaado oo aad si khaldan uga jawaabto ama hadal khaldan tiraahdo iyo waxay keeni karto waa aragnaa guryahanagii baabi'isay marka waxaa la rabaa in aad loo fiirsado oo markii shaki aad dareentid aad si aadan mujaamalayni aad si sax qofka u weydiiso waxa ka shakiday waxay yihiin haddii shaydaan wax kuu sawirana aad cudubilaysato haddii wuxuu wax muuqday yihiin oo shakigu wax jira oo boqolkiiba probability-giisu uu badan yahay yihiin aad weydiiso waxaana arkay maxaa ka jira marka shakiga aan rabno maanta inaan sharxno oo maanta guryaha anaga burburiyey aniga 3 qaybood baan u qaybiyey shakiga qofka naftiisa uu ka shakay khatar inay ku soo socoto oo xaaskiisa uga soo socoto oo ragga inta badan ku shakiyo shakiga xagga maaliyadda ah oo ninku uu ka shakiyo xaaskiisa in maalkii uu gurigiisa siinayay ama iyada siinayay ay si khaldan u maamulayso iyo shakiga gogol dhaafka ah saddexdaas qaybood baan ka dhigay aniga shakiga maanta guryaheena burburinaya oo runtii aad iyo aad culays noogu haya marka mid walba gaarkiisa insha Allah u galeynaa haddii aan leeyahay shakiga nafta ah oo ninku khatar xaaskiisa uga cabsada ah waxay dhalataa kadib markii asagu uu talaabo qaado xagga guurka ah ama shukaansiga ah taasoo xaaskiisa uu ka qariyo waxaan arrintaa ka dhasha markii xaaskiisu ay arrintaa ka war hesho asagoo ka qariyay ama gabar uu guursaday ama xiriir kale uu ku jiro markuu ka qariyo ama iyaduba sidoo kale ha sameeyay xiriir khaldane annagu hadda waxaan ka hadlaynaa dhinaca wanaagsan oo ninkan ayaan tusaalaha ku soo qaadanayna ilaa asaga waa u banaantay inuu xiriir sameeyo ama reer kala guursado iyadaas waa ka mamnuuc marka haddii ninku uu sameeyo in uu xaas kala yeesho ama xiriir kale inuu ku jiro xaaskiisu ogaato qaab kasta ha ku ogaato ama teleefanka uu ku jiro ha ka hesho ama dumar ha u soo sheegaan ama xog kale oo si kale ku soo gasho ha noqotay markay ogaato asna uu hore uga qariyay gabadhu isbedel baa ku dhasha caadfad baa ilaahay qof walba ku abuuray dareen baa ku jira in wax laga qariyana waaba khalad haddiiba hami kugu jiro ood rabtid in la gursto waa inaad xaaska kale u sheegtaa waxa aad qarinaysid waxaa ka daran waxa ka dhalanaya inaad qarisaba ma waa inaad u sheegtaa daawada rasmiga ah la ogaaday baaritaankii ugu dambeeyay anigu aansay waxay ahayd in xaaska oo loo sheegay inaad guursanayso ay daawo tahay marka hore kula dirirto ha kula dagaalamto caadifad kulul ha muujiso aakhirka waa isla keenaysaan ama waa heshiis baad noqonaysaan laakiin inaad ka qariso waxay keentaa masiibo weyn oo ah in gabadha maskaxdeeda ama sida u fakarayso isbedesho ama caafimaad darro ku dhacda warkaa loo sheeg darteed ay waali ku dhacdo ama fudayd fara badan uu galo hadalkaas laga qariyay oo sida kada loogu sheegay dartiis marka oo dhacdo marka shakiga ninku haweenku masayr baa gala masayrkaas marka guurka laga qariyay amaba ha loo sheego oo reerkuba ha jiro ay dareento in masayrba galo si kastaba ha ku gale dumarku qaabab kala duwan bay uga jawaabaan qaar ninkay la hadlaan toos ula hadlaan waxay dhahdeen problemkaas aad jirta igala hadalo de waxaas yaa daaweeyay halaysi qaar caadifada bay la kacaan oo dagaal bay bilaabaan oo waxay uga jawaabaan in ama ninkii ama tooreer ku dhuftaan ama maxaan ku yiraahdaa biyo iyo saliid karkarsan iyo waxa inta u diyaariyaan asagoo jiif ay ku shubaan qaar dilay baa xataa la arko ninkii jiif ama faas ku dhuftay ama tooreer ku dhuftay markii khatarta noocaas marka ninku dareemo
oo gurigiisa uu ka dareemo khatar inay ka jirto shaki baa dhalanaya shaki uu ka shakiyo in shaki baa dhalanaya shakiga uu ka shakiyay khatar inay kusoo socoto ninkaas waxay keentaa guryo badan inay naga burbureen ninkii reaction sameeyo isdifaac galo uu ka shakiyo in gabadhii duulaan kusoo tahay kabacdan uu isdifaac galo difaacaasuna keena ama in toos loo diriro markii toos loo diriro guryaha ku burburaan oo lagu kala tago arrintaas marka shakiga noocaas oo masayr ku dhalay inta badan dawadiisu waxa weeye marka horeba inaan waxba laga qarin gabadha in aan waxba laga qarinba damac ma ku galay ma doonaysaa inaad guursato xaas labaad awood ma u haysaa haddaad capacity u leedahay awood u leedahay inaad xaas labaad guursato xagga dhaqaalaha iyo xagga dabeecadda iyo xagga dulqaadka haddaad awood u leedahay inaad xaas labaad guursato ha ka qarin xaaskaagii hore sababtoo iyadaa muhiimku ah maanta iyadaa haysaa soomaalida waxay tiraahdaa miro geed saaran miro gunti ku jira kuwa geed saaran looma daadi rag badan ba waxay ku guuldaraysteen oo wax fiican u qaateen in haweenka oo laga qariyo guurka labaad ay macno weyn u tahay wax macnaa taas male waan ogaanin in gabadhaas waxay noqotaa markii loo sheegay si kada in ninkii naa guursaday ama asagoo haba u sheegay habeenku aqalgalay kuwa igu yidhi habeenkaan aqalgalaynay oon sii soconay aroos annagoo ah yaan xaaska wacay waxaan ku yidhi caawa waa aqalgalay ogow magteeda in laga qaado wey walu fiirsada waa madfacu madaxa uga dhufanaya wey qofkan bini aadan weeye waa xaaskaaga waa ku jeceshahay waa jeceshahay guray kuu joogtaa waad ka shaqa tagtay waa aqal galay ogow teleefon inta usoo dirto waxaa weeye gabdho badan bay naga lumiyeen guryo badan oo naga baabi'iya gabadhaasna jiraa ku abuurmaysa sababta kuwa badan oo kuwaashay baanu aragnay ninkaagiiba caawa aqal galay oo waay macquul maaha sababta waa kadow waxayse meesha u fadhiyin waxayse filayn waxayse saaka ku tashan marka ragga waxaa looga baahan yahay gabdhaha toos qofkii qof toos u dila dee maxkamad baa la geeyaa waa la xanibaa oo waa laga qaadaa laakiin sida indirect sida kuwa gabdhaha u leynaya oo maskaxda u baabiinaya waa in iyagana war laga yeeshaa wax la isku geeyaa laga yeeshaa gabadha u sheeg haddaad rabto inaad guursatid si masayr iyo problemo kaaga yidhaahdo haddii la masayr dhacaya xataa adiga halagugu masayro adoon guursan laakiin waa guursanayaa dheh ha qarsanin u sheeg adiga ha kula daalanto masayrku ka baaba'aya kabacdi way ku degaysaa laakiin qarinta wax ka xun ma jiran arrintaa la ogaado shakiga labaad ninku khatarta naftiisa ayaamahan qoysaska inaga burburiya waxaa ka mid ah shakiga haweenka qaarkood ay u isticmaalaan raggooda inay ku hayaan agtooda ku xabisaan gurigooda gabar baa nin qabaa waxay doonaysaa ninkaasu waxyaaba diinta ka baxsan inay u marto inuu guri iyada keliya ay haysato gaalnimay ka dooranaysaa quraafaad iyo sixir iyo qashin bay u tegaysaa waxay leedahay ninkaa waan jeclahay ii soo jeedi yuusan naa kale iga fiirin ama agteeda ku xanib maxaa ka dhalanaya marka waxaa ka dhalanaya inuu sixir iyo qashin iyo diinka bax wax ah oo horta marka hore adig kugula heshiiyo nin shiikhaa maalin ii sheekeeyey wuxuu igu yidhi oo dadka qur-aanka saaray wuxuu igu yidhi dadka wax sixra oo dumarka inta guryahooda ka taga dhaa hebel ninkii waa ii soo jeedi nimanka waxaa sameeya ilaa ay gabadhaas jirkeeda banaystaan oo ay naagu noqoto waxba ma sameeyaan because wuxuu sameynaya waa gaalnimo iyadana gaalnimo ku ridaya gaalnimo inuu ku ridaya ka sokow oo xadiiskii rasuulku waa say qofkii u taga curaaf ama kaahin oo wuxuu u sameeyo rumeeya faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam qofkii waxa u taga ee rumeeya nabi maxamed wixii lagu sajiyo uu ku kufriyay baa nabiga sallallahu alayhi wasallam marka gabdho badan baa xal mooday in ay inta quraafaad ay qashin u tagaan naftoodana u dhiibaan oo gaalnimihiisina ku dhacaan haddana ninkii reerkiisii iyo gurigeeda ku qarribaan bal u fiirsada nin baa wuxuu iga sheekeeyey qiso saas oo kale taayaan oo sheekh ah in yaran uu tagto tiri ninkii waxaan rabaa inuu sanaa kale iga guursan oo saas dhaqdhaqaaqin oo aniga kaliya ag joogo deetayadii markuu la heshiiyo iska banaystay oo naa ka dhigtay oo diintii ka saaray oo sina ku riday buu inta wax u soo quraafayay bay orada oo barkinta madaxeeda u gali ninkii guriga ku kici waay
واسكت شفاون وحنوزين دخترك هلا جي ما لقاه إلا ما يقع قولي قوم بدح فريست سريرته كعوة واسكت شفاون ويكون نقطة واحدة هو إنك مدوني نقول إنه يدح فريسته إنه سريرته إيش فانا مر بيني إنه شقتها ما هو شقيان دوني لكن أنا قلبي جيسان كهاللي بودي جيسان مر بيني شركي سمر بيني إنك حوا ماضي وحوا إلا إلهي وطوبت كانتي إنك وداد كاسان عدا كهاللي يا لوجي قرآن اللي يحب الوضع كله كسعودي إنك حسكاها قف مكان أشوجه كيس كان كهاللي وحرانته وقال لماذا boqolaal raga maanta u naafoobay oo u jiifa oo naafo u ah maanta kiiskaas ay ku sameeyeen xaasaska ay jeclaayeen oo guriga la joogay waxa ku khasbiyeyna waa jacayl iyadoo ay jeclayday oo ay lahayd ku soo jeesta maan xumaan ma laakiin jacaylka waxay u martay xaraan iyo sixir iyo gaalnimo ay u martay marka waxa la doonayaa khatarta noocaas markay rag guriyahooda ka dareemaan oo ay fahmaan xaasaskooda inay qashin iyo qurun iyo saaxir iyo waxa ka daba wareegayso guriyo badan baa nooga burburay hal ogaado waa in gabdhuhu arrinta ka digtoonaadaan dumar waaweyn oo maanta hooyooyin waaweyn ah laakiin ilaahay ku ibtiliyay waxaasaa jira oo gabdhaha yararka guryaha inta ugu taga waxaa ku akhriya oo isaga dhigay inay ka khibrad roon yihiin oo ayaan soo joogin laakiin shayaadiin ah gabdhahu arrintaa waa idinkaga digaya guryihiina iyo naftiina habaabeynina casharkeena dulmiga ah ee qaybaha burburiyo qoyska dulmiga qayb ka mid ah ayaa arrintaa ku saabsan waxaan u bixishay dulmiga isdilka halkaasaan faahfaahintiisa badan ku geli doonaa marka ninku hadduu dareemo in gabadhu uu qabay ama xaaskiisii qashin iyo qurun ku dhex jirto oo waxyaabo ama dadaan ficnayn oo guriga ku arko waxaa ka shaqaysta asaguna dee nin ama caqligiisu jooga yahay ama nin wax fikirayahay waxaad ogaataa inuu burbur keeno guriga shaki dhasho shakigaasuna uu fogaansho keeno fogaanshuhuna aakhirkii uu furiin keeno marka khatarta labada ah oo khatarta ah oo shakiga khatarta labada isu bedeshay wuxuu naga burburiyay guriyo badan waa inaan ka taxadirnaa shakiga kale ee labaad waxaa weeye shakiga xagga maalka ah waa ogtiin aabayaashu waa shaqeeyaan waxay shaqeeyaan guryahooday la yimaadaan ama biil buu bixiyaa macluum ah ama dhaqaalo kaluu gabadha xaaskiisaa siiya haddii marka dhaqaaluhu guriga ku bixinayay oo u bixinayay in gurigiisii iyo ilmihiisii la siiyo xaasas ama xaafaddu ama xaasku ay si khaldan u isticmaasho ama ayuuta ka gasho aysan isaga u sheegin ama kayd ka samaysa ay istiraahdo oo lacag ka kaydso biilka ay istiraahdo oo gurigii suququl iyo ciriiri ay geliso ninku shaki baa dhalanaya oo ah waxaad bixisaa xaggee aadaan waxaadna ogaataan biilka uu ninkaaga ku siiyo gabar yahay haddaad ayuuta ka gasho aadan u sheegin waa xaaraan weydii culummada wixii aad ka samaysana waa xaaraan waxaa la rabaa kuumaba diidaye kolley dee reerkaad ku soo celinaysaaye u sheeg kalsoonida ha burburinin waxaasaan u baahnahay dheh laakiin waxaan wixii lagugu talgalay ku qabo kuwa kaydka ka dhigta oo maxaan ku yidhahdaa ka tabco waxa la yidhaahdo dumar qaarkood ku fakaraana biilka ka tabco ninka kuwa ku fakarow haddii tabacaas uu yahay tabac aad guriga ku soo celinaysid oo intaad wax u kaydiso aad guriga si kale uga faa'iideynaysid u sheeg ha ka qarin saana wax u seefgareeyay saana waa samaynaya wuu kugu taageeraya laakiin haddii ujeedadaadu tahay waxaad seefgaraynaysa ama kaydsanaysa wax gaar kuu ah oo adiga gaar kuu ah oo ka tabcaa hadday kuu tahay shakiga ka yimaada gurigaaga adaa mas-uulka labaduna faa'iido kuma leh waxaa la rabaa sida ammaanada gurigaaga lagugu dhiibo inuu saa tahay u fushitid inaad gurigaaga gelisid ilmahaaga inaad siisid naftaada inaad siisid wixii adigu aad gaar u rabtid ninkaaga inaad gaar u weydiisatid laakiin aysan dhicinin waxyaabihii uu asagoo ugu talagalay habka ugu talagalay hab ka duwan inaad u isticmaashid sababta kalsoonidaa burburaysa waxaa lagu wada noolyahay waa kalsooni waa jacayl waa farxad waxa jacaylka iyo farxaddana asal waxaa u ah oo ay ku taagan yihiin waa kalsoonida haddaa kalsoonida ay kaa burburto oo ninkaanu fahmo khiyaamo inaad sameynaysid illa waa khiyaamo wuxuu kuu dhibay si aan ahayn baa u isticmaalaysaa haddaa khiyaamo samaysid kalsoonida baaba'aysa kalsoonidu markay burburtana farxaddaa lumaysa farxaddu markay luntana jacaylkaa lumaya gurigaasuna burburay saasay wax u saaran yihiin waa in la ogaadaa waa in shakiga xagga maaliyadda ah
ee gabdhaha guryaha jooga ay xaasasku odayaashooda u dhiibanayaan ay sida ay tahay u maamulaan wixii ay gaar u rabaan waa inay odayaashooda kala macaamilaan waayo shakiga saddexaad ee maanta guryaheena burburiyey waa shakiga gogol dhaafka ah oo ninku uga shakiyay xaaskiis maanta waxaad ogtihiin waxaan joognaa adduun casri ah waxaan joognaa adduun moobeelka yarka oo adduunka dhan ku dhex jiro waxaan joognaa adduun communicationkii si fudud qofku u samayn karo hadduu doonayo qof inuu la xiriirana si fudud ula xiriiri karo hadduu rabo meel inuu aadana si fudud ku aadi karo hadday saas dhacdo haddaan la information garayn marka warbixinta haddaan la isa siinin haddii gabdhu meel aadaysa ay odageeda u sheegin sharciguna saasuu qabaa hadday guriga ka baxayso meel u socoto inay odageeda u sheegto tar hebel halkaasaan aadaya haddii u diidan ay ka joogto hadduu u fasaxana ay aado laakiin haddii uusan u sheegin oo maalin walba ay meel iska aado oo subax la yidhahdo xaaskaagiba waxaa lagu arkay maxaanku idhahdaa xaafad hebla oo subaxa dambe waddada ay uga hortimaado iyadoo socota oo galabta dambe iyadoo bas saaran uu la soo raaco oo meel u socota uusan u sheegin shaki baa dhalanaya shakigaasuna wuxuu keenay guryo badan inay naga baaba'aan horaan uga soo sheekeynay oo social mediahan lagu xiriirayo telefoonada guriga dhexdiisa iyo socodka badanoo xaaska labaduba shaki bay dhaliyaan oo ninku ka shakiyo in wax khaldan yihiin oo gabadhaanu meesha u socoto iyo waxay la xiriiraysaba uu ka shakiyo waxaa la rabaa marka adiga hooyaad ama xaasbaad ammaanada naftaadana ilaahay mas-uulkaaga dhigay ninkaanu kuma ilaalin karo waxyaabaha keeni kara marka inuu kaa shakiyo iska ilaali oo uga shakiyo naftaada inaad khaldaysid ama aada gogoldhaaf samaynaysid waxyaabaha uga shakin karo iska ilaali waqti fiican gurigaaga ha kugu yimaado ninkaagu markuu guriga imaanayo waa inaad gurigaaga joogta oodan ka maqnaan kow waqtiguu shaqada ka soo baxayo oo aad ogta gurigaaga inuu imaanayo horta inuu gurigaaga aad joogta haddaad meel aadaysid ama qaraabo soo salaan ama hawl muhiima magaalada ka soo qabso inta wacdid u sheeg waxaa tira halkaas hawl ka soo qabsanay waan aaminsanahay 10% ama 8% rag qalabsan inay jiraan oo maanta xaasas badan qaba oo waxba ka aqbali karin oo inay dantooda si hoos u qabsadaan ka doorbida inay asaga la xiriiraan wax u sheegaan iyada laftirkeedu waa khalad wixii ilaahay ku qoray marna ma gafaysid laakiin u sheeg waxaa tiraa war anigu halkaas aan rabaa inaan aado hadday daruuri tahay oo arrin laga maarmaan tahay oo kaa diido ku celceli ilaa asaga aad ka hesho raali ahaansho laakiin gabdhaha inta badan iska baxaya oo guryahooda ka baxaya iyadoo aan wax muhiim aysan qabsanayn oo xaafad emergency aysan u baxayn oo ninku imaanaya guriga iyadoo cidlaa uu imaanaya ama waqti maxaan ku yiraahdaa habeenimo guriga iyadoo ka maqan uu imaanaya meesha jirtanaysa u sheegay shaki baa ka dhashay shakigaasuna wuxuu keenay in guryo badan naga burburaan shakiga marka wuxuu soo xoogeystay intii teknolojiyada iyo maxaan ku yiraahdaa magaalooyinka weyn la soo degay aad u sii xoogeystay sababtoo bi'ad oo samaynaysay horumar samaysay oo qofku uu meeshuu rabo si fudud ku gaari karo ayaan joognaa xiriirkuna xooggan yahay marka waxaa laga maarmaana qofku inuu fahmo inuu ilaaliyo aaminaadii gurigiisa iyo qalbigii ninkeeda gabadhina la loo baahan ninku sidaas si la mid ah ayaa loo baahan yahay gabadha uu qaba xaaskiisa waxa ay ka shakinaysaa inuu iska dhaafo oo uga shakin karto inuu ama khalad laftiis gogol dhaaf jiro ama maxaan ku yiraahdaa xiriir khaldan ku jiro haddaad rabto inaad gursi sax u gurso laakiin marna xiriir khaldan iyo meelo xunxun iyo gabadhu hadday kaaga shakido ama kugu ogaato hatta iyaduna waa kugu dayanaysa ilaa adiga qaa'idkii ahaay adiga reerkan hogaamiye u ahaay haddii adoo hogaamiye u ah khalad samaysid dee dadka imaamka u tahana muqtadi bay leeyihin waa kugu dayanaya dhalinyaro fara badan oo xaasas leh oo khaladaad kale ku jira oo suuqa ku jira ayaa jirta xaasaskooda markay ogaadaan in ninkii iyaga qabay uu suuqa ku jiro oo arrinta ay u caddaato oo shaki marka hore dhashay uu sababay ka bacdina ay xaqiijiyaan iyaguna suuqay gelayaan haddiise ilaahay ka baqay ama si toosay bay leeyihiin anigu isakii sii dah oo halkaas reer baa ku burburaya marka waxaa la rabaa shakiga gooldhaafka ah oo shakiga ugu badan ee maanta jira ah inaan ka hortagno sideedana shakigu waa saan soo sheegay waa tuhuni
توهين كاسن شيطان بعيليه وحرا إن لقى عود بالليست سألوا قد داويني يا مرك شيطان شكي جم سيابا ليس قد داوية كو هرت مرك الله مرك هالشكله أو وحشوك هالصوران إلا شك هو مصور قلبي أجلي أو وحكا كس توهنتي هرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان كإسكندر لأنه الشك ومركو جاك وقول بالوضوح نفس هذا عبق باقليه وليس بافوليه ورير باقليه وأين هذا وحى أصلا سا ورتقته ورتق كعود بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كعود بالله والشيطان كإسكندر مركها شيطان كإسكندر حيدا هذا كتير وكبحي والنفسيسة هو ده ليس وقبوبيسة مسكح هذا إيمان يسوى فكريس لابو إسحكمه يا واحد كشك كذي نفط هذين رنته هو شيء إسحكمه إصرافه كاين نقر الصوت هذا وح مارتي شك بوحو يهين بقى إسفراها كقاد وحبر شيء يسكون مشغول الشقادة هاي يسكون مشغول المها وكل عيار ياش نفط هذا كخصب وحن مع النهاية إني وحوين كاقدكتو إسحكمه وإسعلي مركي عشك درنتو صدح haddii uu kugu soo noqdo shakigi yuusan waqti badan kugu qaadanin intuu god ka sameysanayo oo buufis kugu qariyo bandhig oo problemkaas bandhig oo waxaad ka shakiday qofka uga shakiday weydii ha ka qarinin marka weydiinaysana si akhlaaq iyo maaragtay asluub leh wax u weydiiyo hab aan qofkaas u didaynin u weydii laana haddaad si dagaal u weydiiso ama si mutaxan oo qaawan u weydiiso qofka waxa uga shakiday waxa dhici karta inuu reaction jawaab aan markii uu naftiisa ku ilaalinay qabkiisa iyo sharaftiisa uu ku siiyo marka mar aad degan tihiin oo qabowdihiin oo wax problem jirin oo kaligiin tihiin sheekada soo dhaxgaliyo maalin dhaweyta waxaas arkay maxay ahaayeen waxaas la ii sheegay maxay ahaayeen simply jawaabta lagu siiyo si fiican u faham haddii jawaabtaas ku qancin weydo dheeraad si dalbo saa u shaki baxdid laakiin marna yeesadeen in caloosh ku haysatid shaki aad shakiday in qalbigaaga uu ku jiro uu gubayo marna yeesadeen sababtoo mar kastoo qalbigaaga uu shaki ku jiro qalbigaagu waa sii nuxuusaya buufis iyo waxa ku dhacay iyo isolation inaad go'doon si ahaato qof kale waad ka sii fogaanaysaa waxaan dhici karta waxyaabo kale inay ka yimaadaan oo kuwa ka daran waxaad ogaataa mar kasta oo kalsooni oo shaki ku galo waxaa yaraata kalsoonidu booski kalsoonidu ku jiray haddii shaki soo galo oo aad u dayso shakigaas qalbigaaga inuu ku jiro wuxuu meesha ka saarayaa oo ka bixinayaa kalsoonida marka ha u ogolaanin in shakigu intuu qalbigaaga soo galo uu sii fariisto oo boos ku yeesho ha u ogolaanin la dagaalan ka cuudi bilayso isdhaafi qofka toos wax u weydii ka qanac laakiin ina qalbiga ku hayso marna yeesan dhicin oo calooshaada yuusan gubin dhiigaaga xididada dareenka yuusan kicinin qoysaskeena yuusan niyadu duminin sababtoo shakigu waxa ilaahay abuur ugu badan yahay hadda markaa wada qaadid oo wadada maraysid waxaa laga yaabaa inaad ka shakaysan tahay waxaa laga yaabaa meesha ka shaqayso shaki inaad ka gasho aakhirka buufis kugu dhaco arrintii ugu yaabka badneed waxay ahayd gabar baa ii sheekaysay aad iyo aad gabar wanaagsan ahayd runtii oon qaraabo ahayn gabadhaas qof ka akhyaarsan ama ka wanaagsan ama ka akhlaaq badan runtii oo dumar waa yaraa calafka ilaahay wuxuu ugu daray nin masayr badan oo shaki badan waxa uu gaarsiiyey shakigii uu ninkaasu xaaskiisa ka qabay habeenkii markay seexan inuu silsilada inta qaato uu lugta ka xiro oo sariirta kula xiro oo dhaho intaa hurdaad kacaysa wuxuu gaarsiiyey iyadoo u xiran oo sariirteeda ugu xiran inuu inta kaco daaqadaha xiro dho niman baa taagan sababtoo ah waxaa arkaan qofku markuu shakigu ka bato shaydaan baa dad isaga dhiga guriga dhexdiisu muuqaal ku arkaya daaqaduhu wuxuu ku arkayaa wax taagtaagan oo dad ah adigu ma arkaysid laakiin asagu waa arkaya laana wuxuu isu dhiibay shaydaankii waa ku shaqaysanaya marka oo qalbigiisa rogrogaya oo hadba gees ka soo gelaya oo marna naaga isaga dhigaya marna isaga dhigaya marka taabska xawaan lagu hayaa shakigu marka heer uu halka ku gaarsiiyo oo uu damiirkaagii iyo dadnimadii bedelo oo caqligaaga dhan lumiyo oo qofkii adiga dadka ka doorato ugu jeclayd aan maxbuus ka dhigto iyo ku gaarsiinin
ها marka hore waa inaad iska qabataa waa inaad iska celisaa waa inaad ka cawdi bilaysataa hadduu yahay shakiga aan akhtarta ah iyo hadduu yahay shakiga aan maaliyadda ah labadaasuba xal degdeg ah ay leeyihiin laakiin midka ugu daran shakiga ah waa shakiga xagga gogol dhaafka ah oo xaaskaaga aad uga shakido inaysan ammaano ku ahayn adiga gaar ku ah sababtoo xaaska waa inay gaar kuu tahay waxa dadka uga doorata waa inay gaar kuu tahay haddii marka shaki ku galaa in lagula wadaago oo xaaskaaga ay shirka tahay hadday nafta ay shakiga ku galo asaadan iska qaban acuudu billaahi min ashaytaan rajiim aadan dhihin oodan isxakamayn arrintaas waxay ku gaarsiinaysaa buufis iyo buuq iyo isla hadal iyo aqarka gurigaas oo burbura waxaan doonaynaa guryahanagu inay noo badbaadaan dadka ilaahay maanta xalaasha isaga dhigana ay ku waaraan guurkooda xalaasha ah dad iyo maxaan ku yidhaa dad islaamana tabcaan waxaan codsanaynaa arrintaa in laga hortago shaki hadduu yimaado laba dhinacba inay daaweeyaan waxaan rabaa inaan gaar ula hadlo gabdhaha waxaan doonayaa shakigu inta badan raggu ku dhaca guriga waxa joogana waa adiga waxaa laydinka rabaa haddaad haween tihiin inaad caqligiina miisaan ku dartaan oo isticmaashaan farsamo wanaagsan oo aad uga hortagtaan in odagaagu kaa shakiyo inaad bixisaan ammaano midda ugu sarreysa ninkaagu ama haddii xataa aad masayrsan tahay ood og tahay in lagula guursaday xataa waa inuusan ninkaagu khatar naftiisaa dareemin khatar saaxir iyo qashin iyo qurina waa inuusan dareemin mid gogol dhaafna waa inaysan qalbigiisa kusoo dhicin adaa hooyada guriga ah inta badanna meesha wax ka yimaadaan waa hooyada waa xaaska waxaa la doonayaa in gurigaaga uu noqdo guri free ka ah shakiga iyo waswaaska iyo qurunka qalbiga ninkaagana aad ku ilaalisid si saxa markuu kula joogo iyo markuu uu kaa maqan yahayba waa inuu dareemaa ammaano iyo kalsooni oo adag naftaada ku qaba adaana abuuri kara maaha qof kale wax abuuri kara waa inaad ninkaa u sheekaysaa waa inaad ka dhaadhicisaa inaad asaga daacad u tahay dhegaysanaysid asaga uga dambaysid gurigaas wixii uu ku farana aad fulinaysid hadduu intaa dareemo ninkaagu shaki meesha ma soo gelayo waxyaabaha shaki baabay ka mid tahay dardaarankaasuna gaar gabdhaha u yihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa casharadana dambe haddii aan la yidhaahdo annaga oo sii wadi doona casharkeenna maanta halkaas ayaanu ku soo koobaynaa waa qoys bilow idin leh wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu